ciyaarahan waxaan ugu talagalnay inaan ka hortagno dhalinyarada muqaadaraadka iyo waxyaabaha maandooriska isticmaala si macnaha dhalinyaradaas ay u helaan macnaha inay suurtagal u noqoto inay wax bartaan ay ka mid noqdaan wadamadan u soo guuray dad wax qabsaday si ay u noqon lahaayeen. saaxiibka saaxiibku gudbiya saaxiibka dhalinyarada Soomaalida ah especially Sweden oo kale waxay noqonaysaa inay saaxiibadoodii saaxiibo kale oo ka soo horeeyay inay saaxiibo ku xirtaan oo isku hagaajiyaan maanta waxay maraysaa wax kale iska dhaafay Sweden adoo akbar haya ayaa indhaha shanta algaa kaarka bangiga laga qaado inta basoo lagu qabto lacag haaga qaadanaya waxaas daroogada keenaysa maskaxdooda ma taagna wax dil ugu talagala caruurtii saaxiibka ahay oo kaga faa'iideysanayo cunugii inay maanta waxani maanta hal bac u dhiibaan markii cunugii bari uu soo noqdana wax lacag uu ku farxa ay siiyaan maalinka labaad ma aragtay haddana wixii wax looga badiyo maalinka saddexaad marka dambe inuu gaaraba ugu yaraan hadda sanadka soo dhaafay 9 ku dhimatay muxuu ahaa Sweden ku dhimatay waxaas waxa ku dhintay waxa weeye bastooladaha la soo qaadan hayo iyo dhibaatada loo kala gudbin hayo taasaa keentay in ay saaxiibkiis kale uu sii baafiyo sii haleeyaha runtii tirada carruurta ku dhimatay waa ilaa 50 in ka badan runtii inta xabsiyada ku jirta lama soo koobi karo waa kumanaan waxa loo aaneynayna waxa weeye ficilada gowracan ee drugska ugu koob tahay drugska oo run ahaantii maanta dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad noqdeen wax loo isticmaalo tool iyaga meel walba lagu shaqeysto aan aad iyo aad aan rabaa in macnaha dhalinyarada ay fahmaan waxa looga dan leeyahay ciyaarahan inay tahay in iyaga lagu wacyigeliyo oo laga wacyigeliyo waxyaabaha maandooriyaha in dhalinyarada isticmaalaan si macnaha dhalinyarada ay uga dhicin macnaha hooyada haddii iyo aabbaha ay kula dagaalaan cunuga isboortiga xagga asagoo yaraanta laga soo bilaabo wuu ka wanaagsan yahay wuu ka badbaadayaa daroogo inuu ku xirmo ama saaxiibka xun maxaa yeelay wuxuu saaxiib la noqonayaa cunug kale oo isboortisa carruurta markay yar yihiin waxay saaxiib leeyihiin waxaa marka ay jecel yihiin qofka ku jiro cunuga isboortiska ana waxa waa isboortiga hadduu yahay dhan walba hadduu yahay dadka aan degla joogno haddii yihiin dadka Soomaali community-ga dhexdiisa cunuga isboortiga mar walba uu ka nadiifsan yahay cunuga aan isboortiga ahayn ciyaaraha haddii sii socdaan waxay noo tarkaa inay dhalinyarada yaryar ay ku daydaan dadka waaweyn ee aan muqaadaraadka isticmaalin haddaana daba qabanin oo aanan mataqaana waddankeena ilaahay noo hagaajiyo haddii aynu noqotay halaagan aan ku jirno ilmahan waxaa weeye ha ku tashan ama aabbo ahow ama adeer ahow ama abti ahow ama Soomaali oo jecel oo wanaagga jecel ahow waxay sii baaba'aa